wasiir ku-xigeenka uu qaaftay arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo qunsulka safaaradda Soomaaliya magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay gabagabada tartan ciyaaraha u dhaxeeya jaaliyadaha kaasi oo dhex maray kooxaha Soomaalida iyo waliba Eritrea ee ka dhacay dalkaasi Sacuudiga. haddaba warbixin arintaasi la xiriirta waxa inoo soo diray wariyaha warbaahinta qaranka ee dalka Sacuudiga Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus. wasiir ku-xigeenka oo qaaftay arrimaha diinta dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cusmaan Aadan Dhuubow qunsulka guud Soomaaliya oo fadhiya magaalada Jidda mudane Ilyaas Sheekh Cumar ku-xigeenka qunsulka guud mudane Axmed Maxamuud Diiriye Macruuf mas'uuliyiin ka tirsan qunsuliyadda gudoomiyaha guddiga isboortiga ee magaalada Jidda mudane Awees Cabdallah Kaaboy guddiga isboortiga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jidda ayaa ka soo qayb galay daawashada ciyaartii ugu dambeysay ee finalka ee dhaxmartay kooxaha ciyaartooyda kubadda cagta ee jaaliyadaha Soomaaliya iyo Eritrea oo qayb ka ahayd tartanka koobka lagu maamuusayay marxuum Sacuud Al-Faysal oo ay ku baratamayeen kooxo ku ciyaarayay magaca jaaliyadaha 20 dal ee ku nool magaalada Jidda. haddaba gabagabada ciyaartaasi finalka ee oo dhaxmartay kooxaha jaaliyadaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ahayd ciyaar ku dhisan xirfad iyo farsamo taasina ay si weyn u raali gelisay dadweynaha ka soo qayb daawashadeeda iyadoo ugu dambeyntii ay guusha halkaasi ku raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Eritrea iyadoo Soomaaliyana ay gashay kaalinta labaad ee tartankaasi. haddaba markii la soo gunaanaday ciyaartaasi ayaa qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda mudane Ilyaas Sheekh Cumar oo koob iyo bilado loogu talagalay kaalinta labaad guddoonsiiyay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Soomaaliya iyadoo guddoonsiinta abaalmarintaasi kadib uu qunsulka guud mudane Ilyaas Sheekh Cumar uu ka waramay sida uu ugu faraxsan yahay doorka kooxda Soomaaliya ee tartankaasi iyo sida uu ahmiyad u siinayo horumarinta ciyaaraha iyo kooxaha ciyaartooyda Soomaaliya ee magaalada Jidda. haddaba qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda mudane Ilyaas Sheekh Cumar ayaa markii uu la wareegay maamulka xafiiska qunsuliyad guud ee Soomaaliya ku leedahay magaalada Jidda uu jadwalkiisa shaqo qayb weyn ka siiyay abaabulka dhismaha iyo xiriirinta kooxaha Soomaaliya ku ciyaaraya magaca Soomaaliya oo mudane Ilyaas u arko inay yihiin dhalinyaro matalaysa magaca calanka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. marxalad fiican baa la soo gaaray waxaan rajayn doonaa insha Allah isbedel weyn inuu ka dhici doono dhinaca isboortiga farxad weyn ay tahay caawa inaan kulanadaan la midna inaan ka soo qayb galo insha Allah dhalinyarada isboortiga oo dhan waa saarki doonaa waqti fiican aan wada qaadan doonaa. haddaba intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka oo qaaftay arrimaha diinta dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cusmaan Aadan Dhuubow oo ka waramay qiimaha ay leedahay marka ay koox ku ciyaaraysa magaca Soomaaliya u soo gudubto ama soo gaarto gabagabada tartanka koobka iyo dadaalkii mugala ee ciyaartooydaasi u soo galeen inay soo gaaraan kaalinta labaad ee tartankii u dhaxeeyay kooxaha ciyaartooyda oo matalaysay ilaa 20 dal ee ku nool magaalada Jidda. runtii caawa waxay ii tahay farxad si gaar ahaaneed ah waa dareemayaa guusha waa gaarteen mar haddii finaal la soo gaaray kubaddana sideeda waa cad iyo madow meel u dhacdaba in aad kaalin adag soo qaadato 20 jaalidood inaad ka soo dhexbaxdeen caawa marxaladdaas soo gaarteen iyadoo aan garab badan lahayn bay igu tahay runtii in isboortiga wax ka garanayaan ahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga ahaa hore dowladda federaalka Soomaaliya runtii kaalinka hadda ciyaaraha qaabka hadda atiina oo min footballkana waxaan rajaynayaa anigoo talana dhinaca kaga leh oo ragga sida taqaana Cabdixaaq iyo tiimkooda min footballka in door adag xiriir adagna idin sameyn doono oo rajaynayna insha Allah dhalinyaradan da'da yar maanta arkayna sida ciyaartooda wanaagga ahayd iyo magaca sharafta meesha ay ku soo iyadoo dawlado badan oo naga awood badan soo dhaafteen magac leh dhaqaalahooda iyo xoolihiin marka waxaa garan kartaan tabartiina iyo meesha soo gaarsiin magaca Soomaaliya aad baan kulay iga hambalyeynaa waan rajaynayaa intaanan bixin in aniga qofka kulay baa iska kaashano in aan xaflad gaar ah idin sameeyno taayada ay noqon doonto mid guusha ka rajaynayaa mas'uuliyadaha kale in qalabka qayb Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus warbaahinta qaranka Soomaaliya SNTV Saudi Arabia